2023 xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu fursad siiyay garsoorayaashii ugu badnaa oo dhalinyaro aqoon-yahan ah kuwaas oo ka kala yimid degmooyin gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada waxaan labadii sano ee la soo dhaafay ka soo muuqdeen ciyaaraha wadanka November 2023 waxaa tababar aqoon kororsi ah oo ku saabsan sharciyada kubadda cagta ee Law of the Game loo furay garsoorayaal gaaraya ku dhawaad 50 garsoore ah waxaana 8 bilood ay baranayeen aqoon theory iyo practical ah waxaana ugu dambeyn laga qaaday imtixaankii Law of the Game-ka iyo fitness-ka waxaana sharciyad noqday 23 garsoore oo fursad loo siiyay sanadkii 2023-2024 intaas kadib garsoorayaasha dhalinyarada oo ay gacanta ku hayeen macallimiinta garsoorka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxay fursad u heleen qabashada dhacdooyinka tartamada kubadda cagta sida ciyaaraha dhalinyarada youth-ka under 15 iyo under 17 tartamadii iskuulada gobolka Banaadir sidoo kale waxay fursad u heleen qabashada ciyaarihii xidigaha kooxaha degmooyinka ee lagu qabtay Stadium Muqdisho oo ay maamulayeen maamul gobolka Banaadir waxaana sidoo kale u dheereeyay tartankii kubadda cagta degmooyinka 2023-2024 intaas kadib garsoorayaasha oo aqoontooda la kobciyay waxay qabteen ciyaarihii horyaalka heerka labaad waxaana sidoo kale iminka ay kamid yihiin garsoorayaasha dhexdhexaadiya horyaalka Somali National League oo horyaalka heerka koowaad ee wadanka garsoore Sidi Cali oo kamid ahaa garsoorayaasha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu soo saaray ayaa nasiib u yeeshay ka soo muuqashada tartankii 10aad ee gobolada ciyaaraha Puntland waxayna kamid ahayd guulaha ay soo hooyeen waaxda garsoorka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta maadaama Sidi Cali uu kamid ahaa garsoorayaasha 2023 aqoon ay siiyeen xiriirka Soomaaliya kubadda cagta guulaha 2024 ay soo hooyeen garsoorayaasha dhalinyarada uu tababar xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaa qayb ka ahaa Axmed Ismaaciil Ibrahim Abuukar Axmed oo kamid ahaa garsoorayaasha la soo saaray 2023 inay soo garsooreen tartankii ugu horeeyay oo maamulka SC Khaatumo u qabtay degmooyinka waxaana xiriirka Soomaaliya kubadda cagta lagu amaanay inuu soo saaro dhalinyarada ugu fiicneed abid xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu markii ugu horeysay diyaariyay haween dhinaca garsoorka kubadda cagta waxaana haweenkan tababar siiyay macallimiinta garsoorka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta kuwaas oo tiradooda gaaraysa ku dhawaad 12 haween ah oo markii ugu horeysay Soomaaliya iminka ay yeelanayso garsooryaal haween dhinaca kubadda cagta waxaana haweenkan oo tababar xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ay qayb ka ahaayeen tartankii futsalka ee lagu qabtay degmada Waaberi oo la ciyaarayay xilli habeen ah waxaana shaqooyinkaas ay kamid ahaayeen guulaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta gaar ahaan waaxda macallimiinta garsoorka ay soo hooyeen laba kamid ah garsoorayaasha 2023 fursad helay waxay ka soo muuqdeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakava waxaan labadaas garsoore ay kala ahaayeen Farxaan Abuukar iyo Cali Aweys Cabdiraxmaan oo markii ugu horeysay soo qabtay tartanka Pan African Schools oo bishii December 2024 lagu qabtay wadanka Uganda si kastaba waa markii ugu horeysay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu siinay garsoorka shahaado iyo transcript muujinaya waxqabadkooda fitnesska iyo aqoontooda kubadda cagta ee Law of the Game-ka waxaana Soomaaliya iminka ay u jihaysatay horumarinta aqoonta macallimiinta garsoorka iyo waxyaha kala duwan ee ka shaqeeya xiriirka Soomaaliya kubadda cagta